wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland waxay maanta ka bilowday magaalada Boorama xayndaab loo samaynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama oo muddo badan dhismihiisu raagay. Howlgalkan lagu xayndaabayo madaarka diyaaradaha ee magaalada Boorama ayaa waxa horkacay wasiirka cusub ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Saciid Cabdilaahi Maxamuud Saciid Gaagaale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo agaasimaha waaxda duulista iyo hawada Somaliland. kala iyaguna waxa madashani goobjoog ka ah hoggaanka dhaqanka maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meydhane oo ka warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay dhismaha in xayndaab lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama. danta guudna mid la isbaryayo maaha, waa in qofku qaataa hadduu hantidiisa xitaa tahay dan guud ay soo gasho oo looga qaado wax shakhsi kale looga qaaday ma waa wax aynu wada leenahay, waa wixii ummadani waa meeshii loogu adeegi lahaa, waa meeshii degmada dhani nolosheedu qayb ka noqon lahayd. sidaas oo kale ayaa sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka ugu horeeyay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac, Suldaan Muuse Cilmi Dugsiye, Suldaan Ibraahim Cabdi Riiraash, Suldaan Xasan Xaddi Axmed Baade. dhammaantoodba waxay soo dhaweeyeen in la xayndaabo iyagoo guud ahaanba xukuumadda ugu baaqay inayna hawshani ayna qabiye kaga tagin xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama. wax way dhulkani waa wada jaga iyo beero wadaha airportku waxa way xuduud iyo xad buu lahaa kula sharci buu lahaa ayuu lahaa dawladeed. waxa way sharcigi cidna looga ogolaan maayo inay wixii ku soo xadgudbo cidna looga ogolaan maayo. haddii durugsima yimaado oo ay airportku ka maarmi waayay lafteeda durugsima airportku ka yimaado lafteeda iyada lafteeda waxa way xukuumad iyo oday ahaanba waxay noqonaysaa in talaabada loo wada qaado. wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Saciid Maxamuud Gaagaale oo isaguna halkaasi ka hadlayna waxa uu sheegay waxaan dhagax dhigaynaa maanta waxa weeye kaabadihii ugu horeeyay ee lagu sameeyay xadka airportka, kaabadahaas oo lagu xidhi doono siligii xayndaabka ahaa ee airportka oo dhan ku soo wareegay. waxa qandaraaska qaatay waa company local oo Hemal Construction, Cabdiqaadir Ciise iyo Weyd oo ka shaqeyn doona arrinta hadii Ilaahay yiraahdo. ugu dambeyntii waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid, waxaana uu ka waramay xayndaabkan lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama. halkaynu maanta ka hadlayna waxa weeye runtii ma aha dhulaynu meel ka qaadayno ama dad ka qaadayne, waa garoonkii Boorama ay lahayd weligeed baa ugu qoondeysnaa weeye oo aad moodeen lagu soo durdurkay. haddaynu doonayno inay Boorama korto oo aynu doonayno inay noqoto wax kasta dhici kara, madax baa ka soo degaysa adduunyada kale inay diyaaradaha u furnaayeen noqonaysa arrin caafimaad baa dhacaysa oo khasab ay noqonaysa in diyaarad lagu soo fadhiisiyo la qaado waxaan ku dhahdaa qofka ama gabadha ama qof wax gaadhaan oo degdeg ay noqonayso in Ilaahay naguma keenay la qaado. waa in la helaa meeshii maxaan ku dhahdaa diyaaraddaas ay ku soo degaysay. diyaaradaha yarina waxa ugu yar ay ku soo degi karaan waxa weeye garoonada 150 ayaa ugu yar inaanu balaadhino mooyaan. waxaanu sameynaynaa waanu maanta sameynaynaa garoonka intaanu qaydeynaa waxa weeye waa 4800 oo mitir. 4800 mitir waxaanu ku sameynaynaa 1200 oo kaabadood oo ay u dhiman tahay in deerkii lagu wareejiyo kaabadaha sida maxaan ku dhahdaa Hargeysa oo kale aanu sameynay. Axmed Diriye Ciltire magaalada Boorama.